dadweynaha gobolka Sool ilaa intii aan soo galay soo dhaweynta iyo kalgacalka iyo weyseen sida gaaroweyna way ka maadaqeen gamaankaana guddoonsiisayna waa idinka maadaqaynaa gamaanka waa laydinka filayay waa xaradii gamaanka waa nugaal waa irkii daraawiishta Ismaaciil mara iyo xiin filinaya la fuuli jiray ma hada qalka bulsho waa hadiyad qaran waa doodimari xiin dirkiisii anagu waa hadiyad qaran qof ma aha waxa madaxweynaha la siiyo qaranka leh marka waa hadiyad qaran oo qaran ku leeyahay oo taariikh geli doonta inta waxaan ugu leeyahay socdaalka aniga iyo waqti maanta waxaan u soconaa hadii Ilaahay yiraahdo waa nabad iyo midnimo waxaynu maanta u baahanahay nabad haddii aynu uga hareerayna iyo dalalka jaarka iyo caalamka waxa ka dhacaya waxa loo baahan yahay inay waliba iyo dad waro jaariga halkooda nabad ku qaataan waxaynu Ilaahay uga rajaynaynaa oo ummadooda idin soo ducaynaysay annagu waanu ku ducaynaynaa in Ilaahay gobolka Sool siiyo nabad waarta oo taama iyo barwaaqo iyo horumar gobolka Sool taariikhda Soomaaliyeed dhan ayuu xag hore kaga yaalaa dhibaatooyinka maanta haysta abaaraha raagay colaadaha jiitamay Ilaahay wuu ka baryaynaa inuu qaado oo gobolka Sool Somaliland iyo Soomaaliya dhan iyo geeska uu ka noqdo gobolada hormoodka si aan dhaqanka u yahay jirto qaar ma gambalay qodobka labaad waxaan u gudbayaa maanta waxyaalaha ka jira hareeraha waxaynu u baahannahay inaynu meel walba naga raadino walaaladeen Soomaaliya dhammaantood waxaynu u rajaynaynaa khayr waxaynu ku taagaynaa gacanna la geliyo oo nabadana ku wada noolaano Somaliland colaad cidna uma wado bariyo hore dagaalo dhacay dhinac walba ahaadeen waa in laga gudbaa oo loo gudbaa horumar iyo iskaashi iyo walaaltinimo iyo isaan Soomaaliya waxaynu jaarkanahay haddaynu Soomaaliland waa Puntland colaada dhexmaray dhinac carab kuwa imika jooga waa wax lagu dhamayn karo saacada gudahood geed hoostii oo gaalna u soo guman karin cidina isku afraafay walaalayaal isku diini mayno waxaa sagaalka bulshan oo ah waa xadkii Ingiriiska iyo waa xadkii reeraha waa su'aal la dhamayn karo wax kale oo la isku diri karaan ma jiro reerna cid qasbi mayso daraatarad ma go'aan saaray oo yiri waxa loo soo wadaa cabdiga reesool war Ilaahay mooye aad reesool ma abuuri karo taariikhda ku qoranta Ingiriis bay isticmaaliyeen Talyaani bay isticmaaliyeen Soomaaliya bay ku soo markaan kala waa la abuuraya meel buu ka dhacaya soo waxa loo leeyahay waa maxay leeyahay abaaraha waarta soo noqonaya dhulkii la yaqaanay ee kuwanka farda ku noolaa jireen ee taariikhda boorta marka akhriin nimcada ahaa maanta waa abaar gawaahiira sanadka Ilaahay maadi roobku muu wanaagsan laakiin ka tabaw wuxuu noqonaya garan maayo waxay loo baahanay caqli aan isu dayno isaaminaad dalka oo dhana iyo in horumar samayno oo mudoofaha nagu weerarsan iska ayno oo loo dagaalanay dhibaatada deegaanka loo keenayo walaalayaal ku horumar mayno qolku kala argoorsi meel ku gaarmo argoorsi wiil baa ku dhinta wuu ku dhasho dadka walaalaha ee dagaalada socdaan iyagu may go'aansan dagaalamaan waa amar Ilaahay waa masiibo ku timid waa tii waxa loo noolaynay kalmoor aan tarin waxa kaloo noo gacmaha u furay shalay halkan waxa joogay oo gacanta geliyay ina wiilwaal oo ka yimid jijiga qof kastoo islaam iyo nin kastoo Soomaaliya oo nabad ka dhalinaya gacmaha loo qabanna waa taafureen dad dhimanaya iyo markay nafta hay walaalayaal waxay ka hormareen nafta muranka gobolada iyo degmooyinka xoogay waa badan xataa ay fadaheena degmada Hiblaayo bakad ka qodimaysi waan ka qodaya waa deegaankaygu war Ilaahay waa wajaan doono degmada ku shikray waxaan raga taagay waa masiibo aan laga dhacday waxa ka baahan